militariga Soomaaliya ayaa sheegay in cadaaladda la horgeyn doono shakhsiyaad ka dambeeyay fal argagax lahaa oo maalmo ka hor ka dhacay aagga degmada Weyn ee gobolka Shabeellada Hoose. taliyaha ciidanka lugta Soomaaliya Sahal Cabdullaahi Cumar General Khalid oo goordhow hadlay ayaa sheegay in cadaaladda la horgeyn doono shakhsiyaad loo qabtay fal argagax lahaa oo dil iyo gubid la isugu diray muwaadin Soomaaliyeed. taliyaha ayaa sheegay in la soo qabtay shakhsiyaad oo tiradoodu uu ku cayumay 3 waxa uu la tilmaamay in isla markiiba lagu wareejiyay maxkamadaha iyo hay'adaha cadaaladda ee ku shaqo leh fal argagax leh oo aad looga xumaado ayuu ku sheegay taliyaha ciidanka lugta Soomaaliya mar uu la hadlay warbaahinta codka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. taliyaha ayaa sheegay in dhacdadan ay aad uga xumaadeen waxa uu la tilmaamay in lagu daba jiro shakhsiyaad kale oo falkan loo haysto hase yeeshee qaarkood oo haatan la soo qabtay lagu wareejiyay hay'adaha ku shaqo leh baarista iyo cadaaladda intaba. sidoo kale gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Najax ayaa tilmaamay inay jiraan shakhsiyaad loo hayo falkan kuwa kalena haatan lagu daba jiro oo baaris lagu hayo isaga oo tilmaamay in falkan aysan raalli ka noqonaynin maamulka gobolka Shabeellada Hoose oo isaga uu gudoomiye ka yahay. iyadoo marka laga ambaqaadayo waajibaadka saaran ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo hay'adaha amniga waxaa howlgal qorsheysan oo iska kaashadeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka booliska ee daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed ay runtii ku soo qabteen 3 eedeysane oo ka mid ah eedeysanayaashii ama tuhmanayaashii geystay falkaasi aadka u foosho xumaa. 3daas eedeysane waxaa isla maanta lagu wareejiyay maxkamadda ciidanka qalabka sida